meel kasta oo aan eegno waa meel maran oo ay joogi lahayd. Nadia iyo Michael gabadhoodii Sammy Rose waxay ku jirtay rakaabkii diyaaraddii Boeing ee ku dhacday Ethiopia. waxay ka mid ahayd 157 qof ee dhintay. waa markii labaad ee shil noocan oo kale ah uu saameeyo diyaaradda Boeing 5 bilood gudahood. sida lagu sheegay baadhitaan horudhaca, labada burbur waxaa sababay qalad ku yimi nidaamka diyaaradaha haga. waxaa diyaaradda Boeing lagu eedeeyey inay soo dedejisay suuqgeynta diyaaradahan. dhab ahaantii gabadhaydu waxay u dhimatay faa'iidada Boeing, mana rabo inay qof kale u dhimato sababtaas. waa inay diyaaraduhu ammaan ahaadaan, waana in shirkaduhu ay maalgeliyaan nidaam ka dhigaya duulimaadyadeenna kuwo ammaan ah. Nadia iyo Michael waxay doonayaan inay ogaadaan sababta keentay shilkii soo dedejiyey geerida gabadhooda. waxay hadda wakiil u yihiin qoysaska jooga waqooyiga Maraykanka. waxaan waayay xaaskaygii Carol, saddexdeedii carruur ahaa Rayaan, Kelly iyo Ruby, iyo weliba sodohday. waxaan dareemayaa cidla. waxaan arkayaa dadkii oo carruurahooda la cayaaraya. Paul Najarowga waxaa burburka ku rogmaday qoyskiisii oo dhan. waxa uu rumaysan yahay inay weli noolaan lahaayeen haddii ay Boeing hore u joojin lahayd duulimaadka diyaaradahan. dicitaankii diyaaradda Ethiopia Airlines ee sumadeedu ahayd 302 waa laga hortagi karayay, laakiin shakhsiyaadkani waxay ogaayeen in aan wax dembi ah loo qabsanayn, xabsina aanay geli doonin sannado badan. laakiin haddii ay ogaan lahaayeen in sannado badan jeel ay geli lahaayeen, diyaaradahaas bishii Noofembar ayay joojin lahaayeen. Boeing ma aqbalin waraysi aanu weydiisanay. qoraal ayay noogu sheegeen. waannu ka xunnahay khasaaraha nololeed ee uu shilkanu geystay. waxaannu ku hawlanahay sidii aannu dib ugu soo ceshan lahayn kalsoonida dadweynaha bilaha nagu soo socda. waxaa isbeddelay nolosha qoysas badan, kuwaasoo hadda ku raad jira sidii ay u heli lahaayeen xog run ah.